kulanku wuxuu ahaa kulan muhiim ah oo looga wada hadlay sii xoojinta xiriirka labada dal Soomaaliya iyo Masar. xiriirkaas oo ah mid taariikhi ah baryahan dambana xawli sii qaadanaya sii xoojintiisa. labada madaxweyne waxay isla tilmaameen kulamo hore ay yeesheen waxyaabo lagu heshiiyey iyo sidii loo xaqiijin lahaa oo ay ka mid tahay kaalmada dhan kasta dowladda Masar ay rabto inay siiso Soomaaliya la garab istaagto marka iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ayaa aad labada madaxweyne isula soo qaaday. madaxweynaha wuxuu ka jeediyey khudbad aad u fiican oo loo bogay. wuxuu ka hadlay kaalinta Suudaan ay kaga jirto qaaradda Afrika iyo IGAD iyo wuxuuna sheegay Soomaaliya inay Suudaan meel gaar ah qalbiga Soomaaliya ay ku leedahay oo ay aad u garab istaagtay Soomaaliya waqtiyadii la soo dhaafay markii Soomaaliya ay garab istaag u baahnayd. wuxuu u rajeeyay dadka Suudaan inay gaaraan maaragtay himilooyinka ay leeyihiin wuxuuna ku booriyey kulanka dadkii isugu yimid in la garab istaago dadka Suudaan.